Khadiijo oo ku dhalatay gobolka Shabeellada Dhexe degmada Jowhar waxaa ku soo dhaweynaya caawa gogoshaan ku dhigay waxa weeye gobolkii aad ku dhalatay Shabeellada Dhexe gaar ahaan Jowhar waxaan leenahay ku soo dhawow jaaliyadda reer Jowhar ee ku dhaqan ee degan London waxay ku leeyihiin soo dhawow Khadiijo Maxamed Diiriye
intaasi ka sokow waxaan u gudbinayaa hadalka bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad iskale imaashaa caawa halkaan iskugu nimid mahad ka bacdii waxaan u mahad celinayaa dadka soo qabanqaabiyey ama soo agaasimay isku soo dubariday xafladda qaaliga ee walaasheenna xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ee booqashada ku timid wafdiga hogaaminayeen guddiga baarlamaanka iyo xildhibaanada magaalada London waxaan leenahay ku soo dhawaaw magaalada London welcome to London inta haddaan iraado jaaliyaddu waa jaaliyad Soomaaliyeed waa jaaliyad reer Jowhar aniguna waxaan ku matalayaa codka midaynta Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa markaste oon habaliyo iyo welcome leeyahay jaaliyadda sida fiican ee sharafta leh ee dadkeeda ay u xusiisan tahay ay u soo dhaweynayso iyo waxqabadka fiican anigu waxaan gala jiray bari reer Jowhar markay magaalada Xamar yimaadaan ayagoon aqoon ninkan waa reer hebel laakiin dhahayo markay magaalada soo gala qaasata xaafadda deganaa jirnay qof reer Jowhar uu meelaha ma degan yahay sharafta iyo wanaagga leedina aad ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad u mahadsantiin waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo dibadda iyo gudaha gaarsiinayaa waxaan leeyahay Ramadaan Kariim kuwii Ramadaanka qayr ku soomo oo Ramadaanka kiisa kale iyo ka daba gaaray Ilaahay naga dhigo shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaa nabad iyo midnimo iyo cadaalad iyo inay gacanta isqabsadaan xildhibaanada qaranka oo walaasheen caawa nagala joogtana soo booqatayna waxaan leenahay nabadda iyo hoggaanka wanaagsan wada socodka iyo midaynta in lagu dadaalo waxaan ku soo qatimayaa marka dadaarankayga ah in qof la soo dhaweeyo oo la sii dhaweeyaa waa fiicanta laakiin waxa ka sii fiican anigu 18 gobol ee Soomaaliya gobol walba waa gobolkayga dadka jooga waa dadkayga dalkuna waa dalkayga waxa aniga marka walaalkay ah ama walaashay ah oon taageerayaa oon soo dhaweynayaa xaquuqiisaanka qofka ka shaqaynaya bulu'aadnimada waxa walaalkay ah qofka iskuulka dhisayo qofka caafimaadka ka shaqaynayo qofka masaajidka dhisayo qofka ilmaha yaryaroo agoonta iyo dumarka tabaalaysan oo waqtiga xumuhaaya iyo abaaruhu haya qofka taakulaynayo maalin kasta u taagan qayr Allah siya sida caasha maamo kaleeto waxaan isku bogaadinaynaa oon isku ognahay in gadaal la fiiriyo oo dalka iyo dadka la fiiriyo la iskuna gargaaro nin kasta jaga waa hel haddii nabad la helo caafimaadna la helo waad soo dhaweynayaa xildhibaanadana waxaan leenahay madaxa meel ka koraysa mala London madaxaad u saaranta waana ku soo dhaweynaynaa habeed bana waxaan u malaynaa reema hadda iyo hadda la ku xawaal iyo dhul oo dhama ku dhimanaa u malaynaa aad iyo aad u mahadsan maama Aisha Fadeeshi waa salaamay waa salaamantahay insha Allah anaguna waa ka daba iimaanayna adigana horkac ilaahay idankiis waa mahadsantiin gudoomiyaha jaaliyadda ayaan ku xijinayaa Abdi Umar Ali ku soo dhawo microphone وعن جوهر هدي سن هدلين وعن جوهر أين هدي استاجر أنا لصعبنا لسكوجا مرجع جوهر الله صعبي كرا عاد كلا صعبي كرا
جوهر هنولاتو جوهر هنولاتو ولي intaan magaaladan joogo ma arkin Jowhar saan isugu soo baxo caawa Khadiija madaxeeda isugu yimid saar balayri marka Khadiija waa maasan tahay sida ay isugu soo saartay Jowhar caawa ee halka isugu keentay gabaraan soo qaaday oo ila socotay Cayni waxay tiri wiliga aniga banaanka ma soo bixin marka Khadiija mar ay ugu horeysay dadka in arko banaanka marka xildhibaanadu dad badan ay soo saartay marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رمضان كريم ضدك قار بريتو ويسوميان لكن أنت بدن بريد دم بأيو رمضان أو يا حقيقة الله ويسوميان إن شاء الله مرة كل جين واسكوهم بليين إن رمضان كريم أنت أكيد وعنوهم بليين يا حلبانات دقارن كالصوماليات ولا شيء خديجة محمد ديرية نور حاشي النور waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada London ee cariga UK sidaan oo kale ay ku weelayeen dhammaan reer UK inay kugu soo dhaweeyaan magaalada London London oo dhan baa ku sugayso waqtigaaguna waa yar yahay waxaan u maleynayaa inaad kala gaari wayn doonto insha Allah habeen walbana waxa ku diyaara group oo Soomaali oo dhan isugu jiro qaasatan reer Jowharna caaway qaateen inta kadib walaalayaal wad maasantihiin sida sharafta leh qiimaha badan leh wanaagsan ee aad isku jeceshihiin idinkoonan qabiil ku salaysnayn idinkoonan ehel ku salaysnayn idinkoonan ku salaysnayn isjacayl gooniya aad ku salaysatiin kaliya isu keentay walaaltinimo iyo degaan aad ku wada dhalateen oo ku soo wada korteen runtii hadii ayna gaarsiiso Soomaali oo dhan kulligeen hadii taas aan gaarno kaliya oo wanaageenu na gaarsiyo inaan isugu nimaado oo isku raadsano oo isku taageerno gobolka aan ka nimid iyo meeshii aan isku dhalanay wax fiican baanu gaaraynaa kulligeen walaalayaal marka taasi waa guul soo hoyatay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leeyahay Khadiijo xildhibaanadeena qaranka Soomaaliya ku soo dhawow magaalada London ee cariga Ingiriiska sidoo kale waxaan leeyahay iyagana soo dhawaada xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ee la socdo iyo gudoomiye ku xigeenka xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed Mahad Awad Abdalla oo isagana wafdiga hogaaminayo waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada London ee cariga Ingiriiska xaflado badan oo kuwan ka badan waa la kulmi doontaan insha Allah waana leedin jecel yahay dadka halkan jooga ee reer UK-na waa dadka dibadda jooga ee dalka Soomaaliya ugu jecel ogaada aad uma santii kulligiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u gudbinaynaa marka xagga gabdhaha okay gabdhaha waxaan noogu hormari doono oon jecelnahay inuu iyadana laba kalmadood ayna tiraaho Maryan Ahmed بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها فرحة نوعه إنا سود دوينو ولاشين خديجة محمد ديرية آد فرحة نوعه أبورتي حلدبانا دينا سود دو وكسود دو ما شاء الله وها فرحة نوعه مانتا قبل جوهر كترسن ميل جوهر كترسن إنا نوم موقته فرحة دينا عاو حواي جوهر ولا صورة ريو أنت لكيني كالقعيل كعاو ما شاء الله كالقعيل بدنا عاو ماشان كسو بحي هذا نقول فرحسنا هاي ولا ليالو مركا ما دا فرصة أنا كفا إذا يسنو خديجة وحواي قبلها دان موضة سين كرنا ميكروفونكا إلهي غير بدن هكوسيو بوس كان أدنو فدسيد وحد نوم تليسا ما أنت جوهر أدنو تليسا weligaana ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan noo fadhiso booskeena noo celisid waxaan rabnaa Khadiijo
waa dhibaataysanahay jawhar waa ka warqabtiin dhibka meesha ka jiro waxa yani aan ku dirayna xildhibaanadoo dhan erga kana yani aan u dirayna jawhar waa dhibaataysan yahay dhibka haasta waxa waaye isbitaal keeni waa ka warqabtiin waxaan nagu ceebay horseed inaan isbitaal u aalin waxaan nagu ceebay gabadha laga keenay baadiye dhaxda intay ku jirto in dhaxda intii la soo waday inay dhaxda ku dhimato ilmaheedii inay dhintaan marka waxaan diyaar u nahay caawa aan waafaq u wada nahay lianna qalbiyada reer jawhar waa la wada yaqaan waxaan ku faanaa aan yani aan aad ugu faraxsanahay yani qalubtayna mid waaye waxaan haddana aan yani kalsooni kale igu abuurtay markii lagu yimid oo lagu yiri walaalayaal walaalaha meesha aan wada joogo sida wax yeeshaa waxay tiri walaalaheen reer jawhar waxay yiraahdaan aan sameeyna taasi annaga tusaale inaan ku qaadano waay saa reer jawhar u nahay يعني إني ماشى سجرين أنا قبيل إنه جرين إن أو جرين يعني وجه كله إنه سنجرين إني جرت يعني تاسو صالح أحد قادن لهن واي ما شاء الله مركز هذا ما أنت وحني يعني أن أسكت دوب أو هذا قادنينا إن دبوا ديسكي جوهر أنك وذا كقيب قادنه دام ودن كاد حسلوني أي سعطو يعني نبدأ ينصو إفيسو يعني إسبيتال الذي سلا أبو بالله بالهن سكول الذي سلا أبو بالله بالهن وحكس أو مجع جالية الجوهر لندن UK يعني كم مجعابن إنا يعني عاو هرت هذا كبر لنقادنا أو إذن كان نوبل لنقادين وحنا قرب نسين ذاتك واي بابين بيقضي إيروبك موتور بيه لقو بحيا ملهن فتهادي هذا الدعدي وحكا عاونادنا لوجه استمرها مركز تاسي وحن سميننا اسكو دوب أنا قو اسكو وذا دوب نقضي جوج نقل ما شاء الله جدتك وباباسين جورها دائما عن سعنينه وحن ربنا إنا كفارنا يعني جدك يعني واسمي سنيوس وحن كسعنا يعني سبوس الآن ترتيب الآن مركا ولاشين قضي جسود وكون يكو جرا كوتهن يديننا رمضان كريم سيدان مهنا كون سود ونقفله يكون نقول نقطي لكن سود إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. مدن يالي مروين caawa xalfadan quruxda badan leh oo reejo hore ay ugu talagaleen gabadha walaashooda ah ee xildhibaanada qaranka ah oo annaga aan uga soo qayb galnay annagana xalfadan caawa qarannimo Soomaalinimo aan uga soo qayb galnay mar koobaad iyo mar labaad waxaan leenahay xildhibaanadeena Qadiijo Maxamed Diiriye Xaanshi soo dhawow markan taariikhda aan galo Qadiijo Maxamed Diiriye waa rugcada waa gabar mujaahidad ah waa gabar 22 sano oo dalkeena burburay oo madowga ku jirnay dhaxda u xiratay inay u istaagto baarlamaan kasta ka qayb qaadatay ilaa haddana u taagan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay Qadiijo soo dhawow habeenka caawa meeshan Qadiijo kidisaan ugu imid laba buraanburaan ugu soo hal buraanbur soo dhaweynaan ugu talagalay iyo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed sida diiran ay noogu kacinay dhaxda noogu xirtaan buraanbur xildhibaanada ah marka koowaad waxaan leeyahay السلام عليكم مروة هذا سجيناي السلام عليكم مروة هذا سجيناي أسد بينا نقطة سلام تادي لهان دتمت أنا سيدو كالس معهم بانكو سينايا مروة قديجة هاي حلفة دهان واد متيستي هدان كوبيلا بهجكيغا بحريال هدان كوبيلا بهجكيغا بحريال برنامجكا بحر لباهان كانوا باغاهيا او بوغلانتو هذا ماهان تانو باغاهيا بقركا جواهر ماهان تانو باغاهيا بقركا جواهر ماهان تانو باغاهيا sidoo barbaar shay maaha hantaanu baagahaya bilada Soomaali barlahaban ka baha iskaale bulshada bilada Soomaali barlahaban ka baha iskaale bulshada Soomaali maaha hantay u baagahayaan oo yalan banehaynin booskiina bahariye wax badan baan ciilanaynon
cabihidsanayn wax badan baahan cihilanaynon cabihidsanayn cunaha neelaha haystay caalahankeennu leexsanaa mantiqnoho cuuraatay maaha hantaan maqsoohoodkonnaa soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo dowladdeena federaalka wax ku tarka ay 6 bilood jirto oo guulaha badan waddanka ka soo ida hataa la taageeray ha noolaato war qolqolaysigii gobolaysigii qabiilku ha dhaco soomaaliya ha israacdo Ramadaan Kariim diiriye iyo telefishinada ka soo qayb galay xafladan iyo marti sharafta iyo culimada dhalinyarada kulli waa idin salaamay salaan kadib anigoo ku hadlaaya magaca jaaliyada reer Jowhar waxaan idin leeyahay soo dhawaada gabadha walaasheen ee Khadiija ee nooga timid wadanka Soomaaliya kulli warbixin ayadan ka sugayna anaga waxa leenaga eed inaan aragno ayaan u baahneen oo farxad gaar ah ay noo tahay aragtideeda dadkana arkaysiino dhamaanta waxaad u malaysaa kulli inay ciid oo u tahay farxadda la faraxsan yahay muddo aan dhaweyn aan noogu dambeysay Khadiijo ayadoo gabar yar aan ka soo tagnay ayadoo weyn hadda arkayna maanta gabar wadankii aan naga burburi aan ku kala tagnay maana kala ma tagnaan Khadiijo waa gabar reer Jowhar warbixinteeda hore la idin siiyay waa gabar aad iyo aad qaali u ah oo qiimo badan ka soo qabatay xilal badan Soomaaliya dawladii muxuu ahay ku meel gaarka ahayd dawladii ka sii horeysay ayadoo cunug yar ka soo qabatay wax ilaa ay hadda ay xilal badan ka soo qabatay waxayna ku gaartay waa qalbi fiicnaan iyo nadiifnimo iyo reer Jowharnimo markay reer Jowhar waa qalbi nadiif dadka reer Jowhar waxa lagu yaqaanaa qalbi nadiif niyad saafi ah cadownimo ma naqaano dad naceeb ma naqaano Jowharna waad ogtiin waa Jowhar meel aad iyo aad barwaaqo ah oo warshado badan leh sida warshadii sokorta warshadii barafuunka iyo dacaska warshadii dharka warshadii muxuu ahaayeen bariiska warshado badan ay leedahay ma dawakaas oo leeg wada haystaa warshado badan aad jiro laakiin ma soo koobi karo waa wada muxuu Jowhar waa meel khayraad badan waxa ku yaala fruit badan aan ka helnaa cambaha canuuniga caadka tufaax wax walba ka baxo marka waa kaas dhinacyada ka wada sheegaan gabdhii waa wada jalboodeen marka waa kaas ma tareenka dadka ma yaqaanaan tareen inoo mari jiro Jowhar marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Khadiijo inay tahay gabar reer Jowhar ah way kartidaas meesha keento waa Jowhar sida aad arkaysiin anaga reer Jowhar marka la yiraahdo yaa tahay marka la yiraahdo reer Jowhar aan dhahnaa qabiilka ma naqaan macnihiisa wax badan oo qabiil aan hadda baranay laakiin in anaga ilaahay waa naga najeeyay nasiib wanaag ma qabno ilaahay hadda reer Jowhar waa isjecelyiin sida ka arkaysiin hadda reer Jowhar jecel aan noo wada keenay ma ahan wax gaar ah waa gabadhaas oo reer Jowharka aan xiisaa u qabno reer Jowhar marka la yiraahdo ay dadku ku farxayaan marka waadna mahadsantihiin iyadan waxaan ugu mahadcelinayaa waqtigeeda qaaliga ah ayadoo wafdi muxuu ay la socotay timid shaqay u timid waqti ma hayno waqtigeeda qaaliga ay noo soo hurtayna waa ugu mahadinaynaa Khadiijo soo dhawow xildhibaanadeena soo dhawow Ramadaan Kariim salaamu calaykum waraxmatullaah ميكروفونك waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdo Cararam maxaa loogu daraa waxa caawa farxadiya wallahi horta ilaahay ma hadiiso anoo tareen iska saarno waxba ogeyn ayaa waxa ay soo wacay walaalkay Cabdi Kuka iyo Mooge iyo Cabdi Khani waxay leeyahay caawa xaflada jirto maxaa xaflada jirtaan reer Jowhar xaflad qabo hay reer Jowhar maxaa xaflad qabo Khadiijo maxamed diiriya timid aniga farxad ma dhici kartaa oo inta may joogtaa wallahi bilaa waa joogtaa okay waxaan soo wada Ismaaciil saaxiibka Ismaaciil Arfid warniyo dad sheekadaas marka anaga horta aad baa ugu faraxsanahay walaashay Khadiijo ila arko marar badan TV ilaahow adiko oo nool goorma sarka doontiin laakiin aniga qof kasta way qiim fiican tahay wax kasta Soomaaliya baarlamaanka dhan hadda isku keenan Khadiijo ay fiican waxa joogto Maryam Ahmed Hussein anaga magac kale oo naqaana ma macaan foundation ay idinku taqaaneen
معناها وحواي رجورك مري أحمد أيقد لك دتك كلا قولة حوي ما معاش فنديشن أنا ما معاش فنديشن وأكسبت قريني لا دت بدنا رجور عندرسين عياريان نرجو ولكن أبو أكره جو أنا مو أرتو I can't say واحد مدي كرو مع ذي هذا ما هس واحد جرتو أو ويلسو سعر الرحمري وحلا أدوي جورك جوك آخر نجنك جوك هس وحلا يجوجي أديكان كوجبني جي بارت إسار وكو جرتاي جست إيجاداف جور أنكو جيا قبري مجوك تدو وكو جرتاي جست إيجاداف جور أنكو جيا قبري مجوك تدو أدويا جهر كجوك آخر جنة كجوك أدويا جهر كجوك آخر جنة كجوك هسه تقول مسوي ساري marka jiriskaaga ku jahawra jiq iyo jiwi aan ka jiri jiwi waxay qareer joor kale reer koonfur ku yaqaan waa aad idinku maadcelina waxa hadda noo joogata abwaanada fanaanada qaranka Hibaaq Maxamed Cabdullaahi reer joor ha noolaadan Soomaali hamidoodu Ramadaan Kariim reer joor gaar ahaan waa idin jeclahay ما يرجور روريغلي اكو حجانا وحنكينا وحو برتا وحنبارا واجبكيسا واحسن ماينو وابن ماينو وروريغي ماينو وعن مايني نولل وعن إيا برواقو نبد لاغو وداغو كوارا ودنكينو وحي جيركينا ورابنا يديقا وانكو وردينا نلال وعن يا برواقو نبد لاغو وداغو كوارا ودنكينو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكبالك بالله أنا عاوح إيتا فرحت أن القياس كريم سنتي عدي هذا الكويس كي نحيا عنا فحقيقة كيناي أوكي iga raali ahaada hadii oo aan codkayga oo isdhax qaado waxa iga keenay farxadda iyo waxaan rajaynayaa inaan idin soo wada gaarsiiyo aan dhaho habaryaashay adeeraday abtiyaashay eedooyinkay abaayaashay abooyaashay iyo ardaydayda dhammaantii waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa marag madoonte in jowhar gurigayga gasarkayga iyo gogashayda iyo golihii aan ka imid uu yahay dadka meesha iskugu yimidna waxay ii wada yihiin dadkayga marka anoon mid magacyadiina u sheegin inta meeshii aan ka sheegi lahaa magacyadiina kulligiin madaxa idinka wada dhunkana waa ku faraxsanahay ana dabalna marka waa ku wada faraxsanahay inaan kulankan aan isugu nimaado dareenkayga waxay ku sii kordhinaysaa wixii aan ahaa ogaa aan aaminsanaa wax ka sii badan oo ka sii qiimo badan gobolka aan ka nimid sheegashadiisana waxay igu tahay aniga wax mar kasta aan ku faano waana wax ilaahay siiyey gobolka shabeellada dhexe
inuu kaga duwanaado 18 gobol ee dalka ku yaal sida Soomaaliya ilaahay ugu manaystay wax aan dunida kala qabin ayaa gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar gaar ahaan oo ah magaaladii aan ka soo jeedo iyo gobolka guud ahaantiisa ayuu gobolkaasna uga duwan yahay dalka intiisa kale mana aha waxa aan u sameeynayo waa gobolka kaliya ee leh bad iyo wabi kalluumaysi xoolo dhaqato iyo beero waana gobolka dalka Soomaaliya ugu warshado badan oo waa gobolka ugu astaan iyo taariikh fog oo aan maguurto ah leh oo ilaahay ku banaystay taasaa keenta marka in la dhaho ifka haddii ilaahay nolol kuu qoraayo adduunka oo dhan inaad ku noolaato Jowhar uga noolaaw taaka aakhirana qofka ilaahay oo ka soo saacadiisa dhamaatana ilaahay inuu janno geeyo jecel yahay sidaas la mid ah intaan qarab burburku nagu dhicin intaan la soo aadin qaxootiga dunida intiisa kale ama Yurub ama Mareykan ama Aasiya ama Australia meesha la doonaha ahaato ama Afrikada inteeda kale aan la aadina Soomaalida waxa lagu yaqaanay in loo tacabiro meel la dhaho Saudi Arabia Jeddah oo dadku markay ay ka soo shaqeystaan loo yaqaanay Janaale marka qofkii Jeddah aaday iyo qofkii Jowhar maray isku mid ahayd oo la dhigi jiray Jowhar ama Jeddah marka taasa keenaysa marka gobolkan waxyaabaha lagu sheegay ama uu leeyahay wax aan loo sameynaynin inay tahay laakiin wax ilaahay uu ku manaystay ay tahay ma sha Allah dadkiisana waa dad ul iyo diirkeed ah oo walaal iyo waalid iyo wehel isku ah aniga marka gurigaas ka soo jeedaa dadkaasna waa ka soo jeedaa waa ku faraxsanahay waa run laakiin gobolku waa dayacan yahay asoo dad niyadaas fiican leh oo gobolka dadkiisa ay sidaas yihiin haddana guda iyo dibad dalkii gobolkii looma istaagin dibudhiskiisa looma istaagin horumarkiisana looma istaagin wuxuuna u baahan yahay wax aan badnayn mararka qaarkood duruufaha lagu jiray waa garan karteen inaan loo dhawaan karin Jowhar ama la tagi karan ama intii joogtay xitaa ay ka baxaan waxa keenaysa waxa dalka guud ahaantiisa oo ku sugnaa maanta alxamdulillah waa tagay Jowhar waxaan u maleynayaa in waqti dheer idinku dambeysay haddaysan walaashay farxiyo maxamed faarax xabashay on xamar isku aragnay iyadana waa tagtay gobolka marka wuxuu u baahan yahay wax aad u yar oo annaga nagu fudud in loo istaagan u baahan Mama Aasha Foundation walaashay waxa joogta Dr. Marian Ahmed Gaab jid badan oo loo maraa aan la heli karaa haddii loo istaago waxaas waa la fududeyn karaa annaga isbitaal iyo waxbarasho iyo iskuul iyo wax walba waa heli karaan dadka hadda nabadgelyo waa haystaan oo nidaam wixii ka dhimanna lagu dhameystirayo oo dadka ka imaanayo oo sida uu yahay dastuurka dalkana ku salaysan iyo rabitaanka dadka Jowhar na waa la dhameystiri doonaa haddii Allah uu dal ogolaado laakiin gobolkaas kaliya wuxuu u baahan yahay 4 kanaal in loo qodo isaga isku filan gobolada kalena ku filnaan kara markaan saas leeyahay waa wareystay waan dhaxgalnay mana raba hadeer wax badan inaan ka sheegay laakiin markii la aaday idinku hadda waxa tiraahdaa Jowhar 4 xildhibaan u leeyahay
laakiin 40 xildhibaan oo 4 la sheegay aysan ku jirina soo baxday waxaa soo baxday in Jowhar la aado 40 xildhibaan oo socda la dhaho 40 xildhibaan oo ku dhalatay Jowharna aysan ku jirin marka waa la isku wareeray waxay noqdeen maamulkii markay arkeen in 40 ka maqan tahay inay xamar u soo dhoofaan ay dhahaan war Jowhar oo ayaga markaas aniga kaliya uga dhex muuqday dadkaas ka maqan Khadiija ka maqan tahay oo ila soo xiriireen oo dhaheen Yuusuf Cabdi Garaa kamida iyo gudoomiyaha Cabdi Jiino war adoon Jowhar aadaynin annaga ma aadayno marka waxaan rabnaa safarkii Jowhar loo midaysan yahay adigu ku dhex muuqato inaad aado safiirka la soo dhaweeyo ambassador Maxamed Cali Ameer ما هذه القادوة حتى مشاكل ملا بس صعبية اللي ما هذه كرو أي لا صحريران أيق مركا أنا جاي يقفيرنا ين هذه قاعدة بيحين لما بيحك كرو وأنا صبح ذا مركا وحنكويري واربا إن جوهر لآدو وأكفر أحسن هاي لكن جوهر أو أنا جا أنك ما كان إذن كفكرتين لكن جوهر oo Abdullahi Ahmed Gaab iyo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ka maqan yihiin aniga laftirkayga ma aadi karin sidaas markaa waxay keentay inaan Abdullahina raadiyo Cabdiraxmaanna raadiyo aan wada jir ku tagno marka muhiimadda laakiin waxay ahayd markii la tagay ka bacdi inaan si rasmi ah arintii u dhaxgalnay oo ogaanay waad ogtihiin beeraha dadka iyagu leeyihiin iyo wabiyada iyo duruufaha dalkii ku jiray ee ka sugnaa ee dayactir la'aantii muddada dheer ahayd qofka marka hadduu 1 hektar leeyahay hadduu 5 leeyahay hadduu 10 leeyahay saacada oo u baahdo bagloonkii maxalda bahalihii wabi kanaalada qodaayay qarashka uu ku bixiyo kanaalkaas beertiisa soo gaaraya waxa laga yaabaa inuusan ka soo galin markuu wax tacabku uusan ka soo galin kabisna ma jirto laakiin haddaan reer Jowhar isu tagaan oo 4taas kanaal kaliya loo hagaajiyo reer Jowhar isbitaalna waa dhisanayaan iskoolaadna waa dhisanayaan dardaarankii aan ku soo kala tagnay ayaa sidaas ahayd kaliya marka waxa fiican meeshii waxaas la marin lahaa iyo inay waxaas meeshaas gaaraan kanaalkaas gaarto oo ay meel kale ku dhicin waa ka tashanaynaa ayagana waa diyaar ilaahay idinkiis kuma kala tagayno khudbadaha mikrofoonka waqti badan inaa idin siiyo waa jeclahay inkastoo hawlo jiraan haddana tiina waxay ii tahay fursad aad muhiim u ah oo in la helaayo in kale ilaahay og yahay waqti dambe laakiin allahumma ballaqtum aan gaarsiin karno qof la arko meeshii la rabay si gaar ah uga wada hadli doona waa ogahayna in ay hadii loo istaagay intaas ay sahlanaanayso ajr iyo xasanaad Allah ka siiyo intii u gargaartay islaamka ugu horeeyo organizationka Mama Aisha Foundation inta kalena sidaas oo kale guud ahaan waqtiga dheer oo aan kala maqneen inta dhimatay Allah u naxariisto inta joogtana Allah dhaafo dambigeeni dambi waalidkeen inta jiraan Allah caafiyo hadii Allah oo dala ogolaado Ramadaan Kariim Allahu akram waxa la dhahay airportka Jowhar in loogu magac daro mudane marxuum Mawlid Macaan Maxamuud gobolka horumarkiisa iyo dhismihiisa si airportkaas magaciisa Mawlid Macaan Maxamuud marxuumka oo u helo horumarkiisa iyo dhismihiisa iyo dibudhiskiisa aan ku dadaalno insha Allah marka inta haysatiin aniga xamar waa ka xiriireynaa insha Allah idinka hadda dhinacaas fursadda haysatiin fursadda iska dayacina
jaaliyad saas kugu duubanna hal hoggaan la'aan ma yeelan weysee hal hoggaanna yeesha insha allah wabilaahi towfiiq waa mahadsantihiin ambaashadoorka maxamed cali ameerika iyo fanaanadeenna marin mursal xaaji ciise bootaan fanaanada hibaaq fanaanadeenna qaranka kulligiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan araggayna arag dhaxaad allah ka dhigo insha allah aad iyo aad anigu caawayta arrintan si kadiisa la iigu soo sheegay annaga oo aan maqlay in cali ameeriko nin caanaha dhalay ambaashadoorka kan oo annaga lodadkayagii lodkaasu ahaan jiray inuu magaalada yimid baan maqlay marka aniguna arbacadaan rabay inaan dhoofo intaanan dhoofin waa inaan ku arkaa baan idhi meel casho loogu sameeyaan ugu tegey kadibna reer jowhar inay barnaamijkan leeyahay baa la ii soo sheegay ka maqnaan mahaya baan idhi reer jowhar waa inaan meeshii tagaayoo caawayto aad baa u mahadsantihiin anigu caawayto waxaan ka soo qayb galo un brogaraamkan ambaashadoorka ayaan rabaa inaan mikrofoonka ku wareejiyo anigu heestaan aqaanay khudbadda ma aqaani marka isagaan ku wareejinahayaa waa mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamayaa ramadaan kariim xafladda caawa waxaa meenahay xildhibaanada iskale wasiiradda aniga waxaa u imid kaliya inaan taageero aniga reer xamar ahay reer jowharna waa ahay waxaan rabaa kaliya inaan mar kale anigana aan ayido oo aan taageero magacaabidda la soo qaaday oo jowhar airbortka jowhar lagu magacdari doono insha allah tacaala mawlid macaani marxuumka waan taageeraynaa in insha allah tacaala aynan rumowda hadduu la yidhaahdo mar kale waxaan leeyahay ramadaan kariim fikirka magacaabista airbortka jowhar marxuum mawlid macaan maxamuud waxaa keentay habarirtay xaliimo shafeey annagana waa la qaadanay waana la qaadanaynaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هرتا marka hore waxaan meeshan isugu nimid inaan soo dhaweynta qiimaha qaaya badan aan u sameeyno xildhibaanada Khadiija Maxamed Diiri Xaashi oo ah khaasatan aniga gabar walaashay ah anigoo Ismaaciil Maxamed Nuur ina cirfiid ah reer Jowhar ah waa walaashay waa dariskaygii waa reer Jowhar aan isku nahay waxyaabo badan macnaha dadkii isla soo koray isla soo dhaqmaanahay haddana waa xildhibaanad ka tirsan dowladda qaranka dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya I mean waa gudoomiyaha xuquuqul insaan gudoomiyaha baarlamaanka qaybta xuquuqul insaanka horta waxaan leeyahay walaashay ku soo dhawow magaalada London oo walaalaha joogan gacmo furan ku soo dhawow intaan in ka badan in lagu qabtay ahayd waxaan leeyahay dhammaan waxaan meeshan ka salaamayaa ama mahad gaar ah u celinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay bulshooyinka reer Jowhar meeshan soo qaban qaabisay bahda saxaafadda dadka martida ah meeshan ka soo qayb galay na soo sharfo noo yimid waxaan mahad gaar ah u celinayaa dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay waxaa mahad gaar ah si mudan Mama Aasha Foundation oo hadaysan iyadu ahaan lahayn aysan xafladan qabsoomi lahayn ama casho sharafsan loo sameeyay walaashan Khadiija Maxamed Diiriye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay xafladan meesha ka dhacday iyo sida qiimaha badan quruxda badan ee gabadhan walaashana loo soo dhaweeyay waxaan mar labaad leeyahay walaashan ku soo dhawow waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshan arrin yar horta waxaan ka salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaano inta iga fiirsanaysa adduunka waxaa kaloo rabaa inaan uga faa'iideysto ayaamahan dambe waxaa ka jiray magaalada ama gobolkan ka nimid ama magaaladan ka nimid ee Jowhar xurguf yar dad walaalo ah ee ismaan dhaafay ee xogaa dhib kala gaaray waxaan dhihi lahaa marka hore dagaalka naga qaboojiya oo naga joojiya waliba sababtoo ah dagaal waa ka daalnay in badan baan ku soo jirnay meeshuu na geeyna waa aragtaan 22 sano marayna dhibka uu na gaarsiiyay waa aragteen waqti la isdila lama joogo ee waxa la joogaa waqti la dhiso wadankii marka waxaan ku celinayaa waliba dagaalkaas hal la joojiyo dan nooma aha idinkuna dan idima aha ummadda Soomaaliyeed dan uma aha khaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan magaalada Jowhar dan uma aha
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waaba ka maarmaye waa isma roojisaaye meel kasta aad martaa maseera ku haayo waa muu muuqataa maseera ku haayo waa muu muuqataa injamaana iishooy alkon alkan mana muufadii baartooy alkan mahadaay u dhiibtoyoy alkan minikeeda mootisooye alkan maskax amaanac wareere jaqiyo jiwabe kaa jiriye waa kuugu jirtaay jeesta iiga dhaaf joor aan ku geeyaa gabaryey ma joogtidu waa kuugu jirtaay jeesta iiga dhaaf joor aan ku geeyaa gabaryey ma joogtidu adduunya johoorka joog aakhira jannaa ka joog adduunya johoorka joog aakhira jannaa ka joog adduunya johoorka joog aakhira jannaa ka joog abaaba